Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kulanti wanaagsan idil ahaantiin meel kasta aad joogtaan. Waxaan idiin rajeynayaa inaad nabad qabtaan. Insha Allahu tacaala toddobaadkan waxaynu qaadanaynaa barnaamijkeenii nuxurka buugaagta oo aan had iyo goor ale idinkula wadaagi jiray. Mid ka mid ah buugaagta aan isleeyahay si uun bay ummadda wuxuun u tarayaan oo ka kooban jaanibyada kala duwan ee noloshu leedahay. Insha Allahu tacaala jaanibka ay nolosha maanta ka istaagi doonaa ama jaanibkan aynu ka soo qaadayno buugga waxa weeyaan binaa'ul ama siday ummad ku dhismato ama waxyaabaha asaaska u ah inay ummad dhismato. Buuggaan jeclaystay inaad la wadaago waxaa la yihahdaa alcilmu wa binaa'ul waxa qoray Dr. Raaqib Assarjani oo aynu wax ka mid ah buugaagtiisa hore aan idiinla wadaagay iyo tarjamadiisa iyo biography-giisa aan hore idinla wadaagay. Dr. Raaqib Assarjani waa doctor Masri ah. Masar aan filayay inuu ku nool yahay wuxuu qoray xawaaley dhowr iyo konton buug wax ka badan ayuu qoray oo u badan cilmiga xadaaradda iyo taariikhda u badan civilization iyo history-ga u badan ayuu wax ka qora. Buuggan waxa uu soo baxay nuskhadiisii ugu horeysay baan filayaa 2008 meelahaas uu soo baxay. Wuxuu ka mid yahay buugaagta aan ugu jecelahay buugaagta uu qoray doctorku. Isagoo buug kale oo aan jecelaysnayn in la wadaago oo la yiraahdo Ar-Raxmatu fi Xayaati Rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam iyo buugaagtiisa taariikhda qaar ka mid ah. Buuggan waxa uu ka kooban yahay intaan anigu arkay hal mujallad oo weyn. Mujalladka aniga soo gaaray waqtigooda yaalla wuxuu ka kooban yahay hal mujallad. Nuskhadaas waxay ka kooban tahay hal mujallad wallow ay dhici karto in nuskhadaha qaar ay laba mujallad noqdaan, laba kitaab ay noqdaan ayaa dhici karta. Waayo buuggu aad buu u badan yahay ilaa 700 page meelaha waxa laga yaabaa inuu gaadho. Nuskhadaha qaarna uu 800 gaadho. Marka waxa laga yaabaa in laba mujalladood laga dhigo. Anyhow buuggan wuxuu ka mid yahay buugaagta marka loo yimaado binaa'ul luqadda carabiga weliba ku qoran buugaagta foolaadka oo ah. Ma garanayo in loo turjumay Soomaali waxaan leeyahay English in loo turjumay Soomaalina maan arag weli haddaanu buugaagta soo socota heading ku soo jirta haddaanu ahayn. Meelaha laga helayo kitaabka waxaan u maleynayaa intii khaliijka carabta ku noolna waxay si fudud bay ku heli kartaa. Intii geeska Afrika ku noolna iyaguna maktabadaha buugaagta islaamiga iyabiya waa laga helayaa oo waa laga helaa. Waayo Masar way u dhowdahay. Intii kalena waxay ka dalban kartaa waan maleynayaa Amazon iyo meelaha buugaagta laga dalbado online-ka ah ayaa laga helayaa. Si guud buuggan waxa uu ka warramayaa haddaan soo koobo hadalka wuxuu ka warramayaa aan saada weer ku cabir wuxuu ka warramayaa sirta ka dambaysa horumarka ilbaxnimooyinka iyo dowladda. Sirtaa waxa uu ku tilmaamayaa doctorku sida ciwaanka buugga ka muuqato al-cilm aqoon. Waxa uu leeyahay ma min xadaara wuxuu leeyahay xadaarad ma jirto horumartay oo ilbaxnimooyinkii markaa la ayniga ah foolaad u noqotay ilaa iyo waxa ay qadarin siisay oo ay qiimaysay cilmiga. Wuxuu leeyahay ummadii cilmiga qiimaysa ee budget gaara ku bixisa ee ku dadaasha ee u sabirta ee culimadooda iyo aqoon-yahanadooda ixtiraamta waxay noqotaa buu leeyahay foolaad oo waxay ka horumartaa ilbaxnimooyinka asaagood iyo dowladaha asaagood. Si guud markaa buuggu waxa uu ka warramayaa sirtaas buu ka warramayaa iyo qaabka uu cilmigu weliba waxa uu daraasa waafiya ku sameynayaa xadaaradihii adduunka soo maray oo dhan taariikhii adduunka soo maray oo dhan wuxuu daraasaynayaa gaal iyo muslim labadaba. Muslimiintu ka warramayaa qaabkii ay u unkameen xadaaradii islaamka ay u unkantay iyo qaabkii cilmiga qadarinta u siin jireen iyo waxyaabihii u keenay inay horumaraan ilbaxnimooyinka asaagood iyo kuwii ka horreeyay ay dhaafaan. Wuxuu ka warramayaa ilbaxnimooyinka imka taagan western-ka ama isku wada dar dowladaha imka taagan oo kuwa foolaadka u ah adduunka in ay rukuno adag ku taagay rukunada adag ay ku taageen ay ka mid tahay aqoontu inay aqoonta ixtiraameen budget gaara u sameeyeen hanti gaara ku bixiyeen si gaara u dhowreen. Buuggu waxa uu ka kooban yahay qaybo fara badan. Daa'iman haddaad akhrisatid kutubta Raaqib Assarjani isku qaab bay qoran tahay. Waxa cajiib ah buugga markaad akhrisatid tusmadiisa waxaad arkaysaa in farshaxanimo xeel dheer inay ka muuqato. Markaan leeyahay saas ma ahayn buug amaanay laakiin
qofkii arka luqadda carabiga oo ay access u tahay akhri karaya waa arki karaya tusmada buugga intaan buuggaba u gelin hadduu tusmada buugga arko wuxuu arkaya in cilmi fara badan uu ku qoran yahay. Tusmada buugga wuxuu qaybiyaa Raaqib Sarjani qaybo, deetana qaybaha wuxuu hoosgeliyaa fusuul oo macnaheedu tahay cutubyadii. Cutubyadiina wuxuu hoosgelinayaa mabaaxiith uu ku baarayo ciwaan hoosaadadii cutubkaas ka koobnaa. Buuggu wuxuu ka kooban yahay ilaa 4-5 qaybood meelahaas uu ka kooban yahay. Qaybta koowaad wuxuu kaga warramayaa doctorku ummadda Islaamka ama dadka Islaamka iyo aqoonta xiriirka ka dhexeeya. Wuxuu kusoo gudbinayaa qaybta keliya ilaa 8 cutub ayuu kaga warramayaa. Wuxuu kaga warramayaa manduurka Islaamku cilmiga uu ku eegayo ama Islaamka iyo cilmiga wuxuu kaloo ka warramayaa noocyada cilmiga oo uu leeyahay cilmigu wuxuu u qaybsamaa 2 qaybood. Labadaas oo haddana 2 qaybood oo kale uu sii qaybinayaa. Marka laba dheeg laga istaago wuxuu ka warramayaa uu leeyahay qaybtan koowaad wuxuu leeyahay ummadda Islaamka waa ummatul cilmi. Sababtaana waxaa ku cadaynaya buu leeyahay inay tahay ummatul cilmi. Aayadihii ugu horreeyay Quraanka ee soo dega waxay tilmaamayeen buu leeyahay cilmi oo Ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu nabiga u waxyoonayay nabiga oo ummiya oo aan waxba akhriyin ayuu Ilaahay u soo diray nabiga calayhi salaatu wasalaam malakul Jibriil. Waa malakul Jibriil ku lahaa iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Waa nabi ummiya aan waxba akhriyin waxna qorin haddana lagu leeyahay iqra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqal insaana min calaq iqra wa rabbuka al-akram. Waxaa ku tusaysaa buu leeyahay taasi in ummaddan Islaamku tahay ummad cilmi ah oo diintan gundhigeedu uu yahay ama barbilowgeedu uu ahaa cilmi. Sidoo kale wuxuu leeyahay waxay tilmaamaysaa aayadihii ugu horreeyay soo dega iyaduna inay sidaas si la mid ah saa cilmiga u boorinaysay inay jahligana magaranaysaa liidaysay. Wuxuu soo qaadanayaa aayaddii Ilaahay subxaanahu wa tacaala ku leeyahay fa xukma aljaahiliyati yabquun ayuu soo qaadanaya oo lagu dhaleecaynayo Quraysh iyo Allahumma salli calaa Muhammad dadkii jaahiliga ah xilligaa noolaa. Ilaahay subxaanahu wa tacaala leeyahay fa xukma aljaahiliyati yabquun. Qaybta labaad wuxuu kaga warramayaa doctorku intaan qaybta labaad u gelin qaybta koowaad waxyaabaha uu kaga warramayo waxaa ka mid ah Islaamka iyo cilmigii tibbiga iyo xadaaradda Islaamka. Wuxuu ka warramayaa xadaaradda Islaamka iyo cilmigii juqraafiga. Wuxuu ka warramayaa xadaaradda Islaamka iyo cilmigii aragtida iyo indhaha iyo waxa ku saabsanaa. Intaa saddexda cilmiga uu gaarka u yeelay waxay ka mid yihiin waxyaabaha muslimiintu khaaska leeyihiin. Wuxuu kaloo ka warramayaa cilmul jarxi wa tacdiil oo Islaamku khaas leeyahay uu ka warramayaa. Afartaa cilmi waxa uu u doortay hordhac uga warramaya buugga ama qaybta koowaad uga warramaya waxa weeyaan waa cilmiyo ay Islaamku gaar leeyihiin oo ikhtiraaceen. Qaybta labaad wuxuu kaga warramayaa wuxuu ugu magac daray sinaacatul culamaa oo uu kaga warramayo culimadii iyo aqoon-yahanada dhaqankooda meesha ay ku kala duwan yihiin muslimiinta iyo gaaladu. Wuxuu tilmaamaya inay tahay akhlaaqda iyo dhaqanka iyo suluugga inay tahay ayuu tilmaamaya. Wuxuu leeyahay culimada muslimiinta ama culimada Islaamku waxa ay mumayiz ku yihiin oo ay ku soocan yihiin oo culimadii hore iyo kuwan dambe gaalada intaba ay kaga soocan waxa weeyaan inay dad akhlaaq iyo qiyam iyo diin dad lahaayeen ay ahaayeen. Wuxuu ka warramayaa boosaskii ay ka taagnaayeen culimadu ummadihii hore. Wuxuu ka warramayaa jihaadkii culimada. Wuxuu ka warramayaa akhlaaqdii culimada. Wuxuu ka warramayaa qaabkii ay culimadu u barbaareen usradii iyo qoyska ay ku barbaareen qaab noocma ah. Wuxuu ka warramayaa Imaam Bukhari. Wuxuu ka warramayaa imaamadii oo dhan buu ka warramayaa tashiicadii ay kusoo barbaareen iyo usradii ay kusoo barbaareen ayuu ka warramayaa. Qaybta saddexaad waxa uu kaga warramayaa doctorku doorka uu cilmigu ku leeyahay xadaaradihii iyo ilbaxnimooyinkii dunida soo maray. Waxa uu tilmaamayaa doctorku wuxuu soo bilaabaya ilbaxnimadii China ka soo bilaabaya oo ilbaxnimooyinkii qadiimka ahaa hadday tahay tii Chinaha hadday tahay tii Romaaniyiintii hadday tahay tii Farisiyiintii ilaa iyo waxa uu keenayaa Greek. Kadib doctorku waxa uu intaa ku sii daraya hadalkiisa uu ka warramayaa ilbaxnimooyinka iminka taagan oo iyadana ka soo qaadanaya 5 wadan. Wuxuu soo qaadanaya wadanka Mareykanka iyo dowrka uu cilmigu ku leeyahay dhisitaanka dowladda Mareykanka. Waxa uu ku xigsiinaya dowladda Japan. Waxa uu ku sii xigsiinaya dowladda South Korea. Waxa uu ku xigsiinaya Malaysia oo aad ugu dheeraanayo. Waxa uu ugu dambaysiinaya dowladda Imaaraadka USA ugu dambaysiinaya dowladda Sultanka Imaaraadka Carabta. Waxa uu intaaba tilmaamayaa ilaa uu ka soo bilaabayo ilbaxnimadii Chinaha ilaa uu keenayo tii Greega
ilbaxnimooyinkaasoo dhan ilaa uu ka warramaya shantan wadan, waxa uu intaaba ku tilmaamayaa in ay horumarka ay gaadheen iyo ilbaxnimooyinka faca weyn ay abuureen inay sidaas u ahayd cilmigu. Wuxuu ka warramayaa qaabkii ay farisiyiintu cilmiga u ixtiraami jireen. Wuxuu ka warramayaa romaaniyiintii. Wuxuu ka warramayaa markuu romaaniyiinta dhameeyo wuxuu ka warramayaa ilbaxnimada islaamka. Wuxuu ka warramayaa dowrkii ay ku lahaayeen madaxdii muslimiinta, hadday tahay dowladdii umawiyiinta, dowladdii cabaasiyiinta, dowladdii andalus ka dhalatay umawiyiinta. Waxa uu tilmaamayaa in magaalada Baqdaad iyo Qurduba ay noqdeen labada caasimadood ee adduunka ugu waaweyn, bal ay noqotay labada meelood ee adduunka oo dhan isugu yimaadaan. Hadday noqotay qofkii cilmi doonaya, hadday noqoto qofkii dhakhtar doonaya, meesha ay usoo safraan ay u yimaadaan ay tahay Baqdaad iyo Qurduba, siiba magaalada Qurduba. Waxa uu tilmaamaya, wuxuu leeyahay waxay intaa mansilada ku heleen iyo booska ku heleen, hadday maanta Washington iyo New York iyo London hadday yihiin caasimadaha adduunka, waxa ay booska ku heleen labada magaalo waxa weeyaan inay cilmiga ixtiraameen oo cilmiga qadariyeen oo cilmiga weeleeyeen. Waxa uu tilmaamayaa doorkii khaliifkii muslimiinta ee Cumar bin Cabdilcasiis cilmiga ku lahaa ee uu ixtiraami jiray culimada. Wuxuu tilmaamayaa doorkii Haaruun Rashiid ku lahaa. Wuxuu tilmaamayaa doorkii inankiisii ku lahaa Maamuun. Waxa uu tilmaamayaa kitabadihii ay aasaaseen, qaabkay cilmiga u ixtiraami jireen. Waxa uu tilmaamayaa doorkii uu ku lahaa Cabdiraxmaan Annaasir. Wuxuu tilmaamayaa inankiisii doorkii ku lahaa Alxaakim Almustansir. waxaasoo dhan buu ka warramayaa. Deetana waxaasoo dhan markuu isku soo xidho wuxuu tilmaamayaa, uu daraasaynayaa qaabkay cilmiga u ixtiraami jireen. Maaha jaanibkoodii siyaasadda, maaha jaanibkoodii dagaalada, laakiin waxa uu tilmaamayaa in ay abuureen markazyo cilmi ah oo cilmiga faafiya. Waxa uu tilmaamayaa inay labada cilmiba ku dadaali jireen. Marka uu ka warramayo, marka uu kelmaddan alcilmi soo qaadanaya Raaqib Asarjaani, hordhaca buuggu kaga warramaya wuxuu leeyahay cilmigu laba u qaybsamaa. Wuxuu u qaybsamaa alculuum alxayaa iyo culuum sharci. Wuxuu ka warramayaa, wuxuu leeyahay cilmigu wuxuu u qaybsamaa si kale haddii loo eego cilmi fardu cayna iyo cilmi fardu kifaaya. Labada cilmi ka fardu caynka waa cilmiga shareecada. Qof kasta waajib ku ah inuu barto qaabka loo tukado, qaabka sekada loo bixiyo, qaabka loo soomo, inuu qofku barto waa ku waajib. Wuxuu leeyahay cilmigan fardu kifaaya waxa weeyaan waa faral qof haddii ummadda muslimka ka mida uu sameeyo uu ka dhacayo. Matalan waxaa ka mid ah qaabka dadka loo daweeyo cilmiga dhakhtarnimada. Waa cilmi fardu kifaaya. Haddii qof ka mid ah ama qayb ka mid ah bulshada ay ku qunto, bulshada intii kale wuu ka dhacaya. Waxa uu tilmaamayaa markaa ereyga cilmi adeegsanaya, wuxuu tilmaamayaa Raaqib Asarjaani in cilmigu uu yahay labada cilmiba marka la isu geeyaba. Marka sidaas awgeed waxa uu ka warramayaa Raaqib Asarjaani markuu dowladahan ka warramaya, ilbaxnimooyinkan ka warramaya, labada cilmiba waa ka warramaya. waliba siiba dowladda muslimka markuu ka warramaya labada cilmiba waa ka warramaya. Qaybta afraad wuxuu doctoorku kaga warramayaa qaybtaan jeclahay inaan kusoo gabagabeeyo doorka ay aqoonta doorkii aqoonta iyo nolosha aqoon-yahanada ayuu ka warramaya. Wuxuu ka warramayaa wuxuu ka kooban yahay qaybtan waxay ka kooban tahay ilaa 5 cutub. 4 cutub hore wuxuu ka warramayaa culimo muslimiina. Marka culimada muslimiinta buu laba u qaybinayaa. Wuxuu u qaybinayaa culimadii diinta iyo culimadii maadiga, cilmiga maadiga ama culuumul xayaa baratay. Deetana wuxuu ka warramayaa marka uu ka warramayo culimadii diintana laba uu sii kala qaybinayaa. Wuxuu qaybinayaa culimadii hore iyo culimadii dambe. Marka wuxuu ka warramayaa doorka ay culimadaas ku lahaayeen dhisitaankii xadaaradii xilligooda jirtay, hadday noqoto kuwii hore iyo kuwii dambe. Sidoo kale wuxuu ka warramayaa doorka ay ku lahaayeen culimadii maadiga hore iyo kuwii dambe labadaba ayuu ka warramayaa. Matalan tusaale ahaan markuu ka warramayo culimadii hore diinta, wuxuu soo qaadanaya Imaam Bukhaari iyo doorkii ku lahaa inay dhismato ummatul xadiis inay dhismato. Wuxuu ka warramayaa Imaam Muslim, wuxuu ka warramayaa Ibn Taymiya, wuxuu ka warramayaa culimadii diinta oo dhan buu ka warramayaa. Markuu ka warramayo culimadii maadiga hore wuxuu soo qaadanaya Jaabir ibn Xayaan, wuxuu soo qaadanaya Ibn Nafiis, waxa uu soo qaadanaya Bayruuni iyo qaabkii iyo doorkii ay ku lahaayeen in dhismato xadaarad islaam oo looga yimaado ilaa iyo Talyaaniga halka u shaysa looga yimaado, Yurub oo dhan looga yimaado, qaabkay u dhiseen iyo qaabkii cilmigoodii taraajim badan loo sameeyay, luqado badan oo Laatiina loogu turjumay buu ka warramayaa. Wuxuu tilmaamayaa inaanay cilmigu berigaa hore waagaa hore kaliya inaanu qiimo lahayn, waagan imika la taagay inuu qiimo leeyahay. Wuxuu ka warramayaa culimadii diinta sida Ibn Baaz iyo Abu Yacla al-Mawduudi. Wuxuu tilmaamayaa markuu Abu Yacla al-Mawduudi wuxuu leeyahay
wuxuu qoray 140 buug in ka badan oo loo turjumay 16 luqadood in ka badan ayuu tilmaamaya Abu Yacla al-Mawdudi. waa nin Hindiya buu ahaa raximahullah. waxa uu kaloo tilmaamayaa markuu dhameeyo culimada muslimiinta, wuxuu tilmaamayaa culimadii reer galbeedka ee waqtigan noolaa ama casrigii dambe noolaa, wixii qarniyadii dambe. waxa uu tilmaamayaa James Watt, waxa uu tilmaamayaa Edison, waxa uu tilmaamayaa allahuma salli calaa Muxamed, Albert Einstein iyo mulxidkii yaraa ka dhintay Hawking. intaba uu tilmaamay. wuxuu tilmaamayaa doorkii ay ku lahaayeen in ay dhisaan western civilizationka, inay dhisaan iminka aqoonta loo doonto ee jaamacadaha ugu waaweyn ku yaalaan, doorkii ay ku lahaayeen ayuu tilmaamaya. wuxuu kusoo gabagabeynaya Raaqib Sarjani buuggiisa, wuxuu leeyahay haddii aynu rabno inaynu ummad dhisno waa inaynu aqoonta ixtiraamnaa, waa inaynu aqoonta ixtiraamnaa. qaabkan ku ixtiraamana waxa weeye inaynu dhaqaalaha ugu badan ku bixino, inaynu dadaalka ugu badan ku bixino. wuxuu tilmaamayaa qodobka labaad waxa weeye inaynu dadaal dheeraada iyo jihaad dheeraada inaynu aqoonta ku bixino oo aynu aqoonta ka warqabno. qodobka saddexaad uu kusoo gabagabeynaya buugga wuxuu yaraa doctoorku in aqoontu waxay leedahay culaysyo fara badan, waxay leedahay waayo adag iyo zamano adag bay leedahay in lagu samro ayuu tilmaamayaa. intaasaan jecelahay buugga inaan kusoo gabagabeeyo. runtii waa buug aan kula talin lahaa qof kasta inuu akhriyo. qofka carabida access u haysta akhriyi karaya, fahmi karaya inuu akhristo. luqad adag kuma qorno, luqad yaroo jilicsan buu ku qoran yahay, si yaroo farshaxanaysanna wuu qoran yahay. haddii aad buugga wada akhrin kari weydana, inaad isku daydid qayb kamida buugga inaad akhridid, qaybtii ku anfacaysa markaad tusmada buugga akhridid. waxaana jecelahay in buugga ciddii u tafaxaydanaysa isku daysa inay turjunto, inay buugaagta noocan oo kale in la turjumo oo ummadda Soomaaliga ah ee aan maktabadahooda lagu soo daro intaan carabida akhriyi karayn. buuggu sidiisaba marka buug aad akhrisanaysid wuxuu ku fiican yahay inaad luqadii koowaad ee buugga kusoo baxay inaad ku akhrisatid. tarjumadu waxyaabo badan baa laga yaabaa inay isbedesho, waayo qofka tarjumaya aragtidiisu wax ku turjumaa. dhibka kale tarjumadu leedahay waxa weeyaan waxaa jirta marka weliba Soomaaligeena laga hadlayo ma jirto standard la isku waafaqsan yahay oo luqadeena ah. wallow imika cilmi baarisyo fara badan ay jiraan, ilaahay khayr ha ka siiya inta cilmi baarisyo sameeyay, wali cilmi baarisyo badan jiraan, haddana ma jirto tarjumad la isku waafaqsan yahay. marka turjumada buugaagta lagu sameynayo wax badan bay maktabadaha Soomaalida ay kusoo kordhiyeen, hadday noqoto aqoon iyo hadday noqoto cilmi. laakiin qofkii access u leh akhriyi karaya luqadda carabida ama luqadii buugga lagu qoray, hadday English noqoto hadday carabi noqoto labadaba, ama hadday noqoto Faransiis, inuu luqadda ku akhrista u fiican. waayo tarjumadu waxyaabo badan bay ka tuuraysaa. marka ciddii u tafaxaydanaysa doonaysa ciddii aan akhriyi karin carabida inay luqadooda hooyo ugu turjuntana waan soo dhaweynaynaa. buugga ha la akhriyo. waxaan leeyahay intaynu barnaamij lamida ku kulmi doono fi amaan illah. السلام عليكم ورحمة الله.